waa barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga. Barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqeyn doonaa qaabka ay u shaqeyso waaxda bulshada ama socialka inta badan. Waxaana barnaamijkaana inta badan uu saameynta ku yeelan doonaa qaabka carruurta looga qaato waalidiinta, qaab sida guud ee u shaqeyso waaxda bulshada. Barnaamijkeenan waxaa ku marti ah oo ila falanqeyn doono Axmed Xirsi oo ah xubin ka tirsan xisbiga Fenister Partyed ahna gudoomiye xigeenka guddiga dhaqanka ee gobolka Västerbotten. Axmed sidoo kale wuxuu ka tirsan yahay qeybaha ka mid ah socialka ee go'aanka ka gaara carruurta la qaata. Xirsi, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka bulshada iyo ganacsiga. habeen wanaagsan walaalkay aad baad mahadsantahay adiga iyo baxda muxuu ahaa saxaafadda waan ku dhowahay. Axmed, maadaama aad ka tirsan tahay socialka ama qeyba ka mid ah ee socialka, marka adoo ummadda Soomaaliyeed ama waalidiintaba u faa'iideynaya, waxaa dhici karta dadka qaar inaynan si toos ah u fahamsaneen. Marka qaabkee u shaqeysaa waaxda bulshada? aad iyo aad baad markaa umahadsantahay walaal inaad su-aashaan markaa muhiimadda ah aad maaragtay weydiisay in maanta maaragtay lagu soo casumay waaxda bulshada ama socialka waxa maaragtay waa qaybta ugu muhiimsan ee waddanka muxuu ahaa ka jirta markii loo eego carruurta iyo dhalinyarada. markaa maaragtay waa qayb markaa maaragtay dhowr waxyaalood kala caawinta dadka waaweyn ee u baahan markaa kaalmada iyo caawinta markaa maaragtay u baahan maaragtay ilmaha yar aan qaangaarka ahayn ka soo bilow markaa maaragtay markay dhashaan ilaa ay intaysa gaarin markaa maaragtay 18 kadib markay gaaraan 18 haddii dhibaato markaa maaragtay jirtana weli markaa lug bay ku yeelanayaan markaa maaragtay qaybta bulshada ama socialka. waa tahay Axmed, waxaa jiri karta qaybo kala duwan oo ka mid ah waaxda bulshada oo waalidiin qaar ah inaysan garanayn ee suurtagal tahay. maxaa inoogu sheegi kartaa? horta qaybta bulshadu maaragtay waa maxuu ahaa markii loo fiiriyo xagga dhaqaale ahaan markaan ka hadalno waa meesha aynu ka dalbanno markaa maaragtay muxuu ahay haddii aynan haysanin wax aan nolosheena ku dabarano ama aynan shaqaynin ama haddaanan shaqayno lacagta markaa maaragtay muxuu ahay daruuriga aynu u yartahay maaragtay waa meesha aan markaa u doonanayno inaan markaa maaragtay muxuu ahay nolosheena ku dabarano oo aan xaq u leenahay sida sharciga ah. ta kale markaa maaragtay muxuu ahay waa muxuu ahay waa qaybta markaa maaragtay carruurta qaabilsan dhalinyarada qaabilsan haddii dhibaato jirto markaa maaragtay waa meesha markaa maaragtay go-aamada ka gaaraysa in carruurta markaa maaragtay la siiyo kaalmada ay u baahan yihiin haddii ay markaa mataqaana maaragtay ay noqoto in muxuu carruurtii markaa laga kaxeeyo meesha markaa ay ku sugan yihiin oo la geeyo meel kaloo ay markaa ku nabad heli karaan. waa tahay waxaa jiri kara Axmed, maxay ahaato carruur dhiban ayaa jiri karto, marka yaa mudan in carruurtaani yaa dhibka gaarsiin karo oo kale meesha shaqada ku lahaa in loo gudbiyo? horta waxa weeye dhowr meelood baa jirta markaa maaragtay muxuu ahaa oo ay sida sharciga waajib ay ku tahay in ay markaa maaragtay gaarsiiyaan haddii uu walwal yimaado ama ay arkaan. waxaa ka mid a iskuulka, waxaa ka mid a caafimaadka, waxaa ka mid a markaa maaragtay muxuu ahaa xanaanada carruurta ayaa ka mid a iyo waxaa hataa kaloo ka mid a markaa maaragtay dadka bulshada ah markaa maaragtay ee kaaga dhow kugu nool ama ku arki kala markaa haddii dhib markaa muuqda uu jiro. waa tahay Axmed, in badan waxaa maqlay adoo waxaan jeclaaday inaad usii faahfaahisid waalidiinta oo kale LVO log la dhahaa jira ama sharcigaas oo kale, isaga muxuu yahay dadka hadaa u bayaaniso? markaa sharcigaasiti waa sharci markaa mataqaanaa aad iyo aad u muhiimsan oo asaas sheegta markii loo fiiriyo afkooda Swedishka LVU waa L-ku waa sharciga, B-guna markaa mataqaanaa kaalmaynta markaa maaragtay U-duna markaa mataqaanaa dhalinyarta.
dhalinyarta markii lagu leeyahay waxa weeye wixii ka hooseeya 18. waa tahay axmed sidoo kale waalidiin badan ayaa caruurta laga qaataa adiga waxaad ka mid tahay qayb ka mid ah meelaha talada go-aanka dhabta ah looga qaato markii la rabo in waalidiintoo kale la rabo caruur in laga qaado waalidkoo kale isaga ma joogi karaa meesha la rabay in go-aanka looga gaaro caruurtiisa go-aankaasi markii la gaarayo markaa mataqaanaa maaragtay munaaqashada ayay waalidku markaa maaragtay xaq u leeyihiin in markaa maaragtay go-aan la gaaray in kadib markaa laga munaaqashoodo ama markaa maaragtay go-aan markaa maaragtay la gaari rabo in markaa maaragtay la ogaado markaa maaragtay go-aan noocaas oo kale inuu iman karo tusaale ahaan markaa maaragtay iskuulkii ama booliska ama markaa mataqaanaa maaragtay caafimaadka ama mujtamaca caadiga ah ayaa waxay arkeen ama markaa mataqaanaa xaqiijiyeen in ilmo dhibaataysan ay jiraan oo ay markaa u gudbinayaan markaa maaragtay cilmiga bulsho muxuu ahaa socialka markaa mataqaana maaragtay oo ah qaybta markaa maaragtay qaabilsan muxuu ahaa ummadda qaabilsan markii dacwo noocaas oo kale ay timaado waxa weeye markaa maaragtay go-aan bay gaarayaan oo kooban oo isla markii markaa maaragtay ay markaa ilmihii ama ay siinayaan markaa maaragtay muxuu ahay waxay markaa u arkaan inay ku badbaadin karaan ama in ay markaa ilmihii markaa ka soo qaadaan ayagoo markaa mataqaanaa isticmaalaya markaa maaragtay sharciga ahaa LVU-ga haddii uu si toosa ay ku fulin karaan iyo haddii ay markaa boolis markaa maaragtay kaxaysan karaan markaa maaragtay oo haddii ay jirto markaa maaragtay nabadgelyo darro markaa maaragtay ay ilmihii u helaan aad iyo aad axmed inta badan waxaan aragnaa waalidiin oo kurbeesan sidoo kale markay inta badan caruurta markay gaaraan da-da 13 14 15 waxaa isbedela hormoonkoodii oo waxaa macquul ah iyaga iyo waalidkii inay isfahmi waayaan waalidiintaas oo kale oo isfahmi darada caruurta ka jirta oo kale kana baqaaya inay u gudbiyaan soshaalkii oo kale ee isdhahaya caruurtii baa lagaa qaadanaya iyagana maxaa talo ku siinaysaa waa midda ayadan markaa maaragtay ugu muhiimsan inaad markaa su-aasha noocaana kale aad weydiisay way aad ba u ficneed in keliya aan markaa ku mashquulo ama aan ku mashquulo keliya maaha waxa ay socialku qabtaan iyo waxa ay sameeyaan waa in haddana markaa maaragtay waalidiintii maxaa tala la siin karaa maxay u baahan yihiin inay ogaadaan waalidku mar walbo inuu markaa la socdo weeye waalidka ilmaha 18 ka yar ee guriga ku nool ay dhaleen ama ay mas-uulka ka yihiin ayaga ayaa markaa mataqaana awoodda iska leh guriga ay ku nool yihiin cuntada ay siinayaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan meesha ay seexanayaan waktiga ay guriga soo gelayaan waktiga ay ka baxayaan marka waalidku inuu taa marnaba inuu ka baqo ma ahan markaa mataqaana waalidka mar hadduusan samaynaynin markaa maarata waxyaalaha mamnuuca ah sida markaa mataqaana xadgudubka markaa mataqaana maaragtay muuqda ama af ha ka yimaado ama gacanta ha ka yimaado hadduusan waalidku intaa ku dhaqmaynin markaa maaragtay ilmuhu waxay rabaan ha sheegaano baaritaanka la sameeyo ayaa caddaynaya in waxa markaa mataqaana xaqiiqda ah inay soo baxayso marka waalidku marba inuu markaa maaragtay kalsooni inuu leeyahay uusan baqaynin ayaa muhiim ah uuna kaga hormari karo marka haddii dhibkaasi dhib uu macnaha maaragtay uu qaban karin ama waxuu ka qaban karin waalidku haddii ay tahay inuuba markaa mataqaana la xiriiraba socialka markaa ama qaybta muxuu ahay cilmiga bulshada uu yidhaahdo markaa dhib noocaasa ayaa haysta oo aan u baahanahay in la ikaalmeeyo aad iyo aad waan ku gartay axmed laba su-aal ayaa ii ka harsan midda waxay noqon doontaa caruurtii oo kale waalid caruurtiisii oo kale ma laga yaabaa caruurta xaaladoodii in laga wareysto oo in xaaladda iyaga iyo waalidka dhexdooda ka dhexeeya in la wareysto ama sida qaabka ay guriga ku nool yihiin oo kale in la wareysto taasoo kale ma dhici kartaa haddeese jirtana maxaa laga rabaa waalidiinta haddii dhib muuqda markaa mataqaana ama waalidku markaa maaragtay muxuu ahaay isaga ha raadsado maaragtay muxuu ahaay dhibkaasi ha sheego ama meel kale dhibku ha ka yimaado
meelaha imaha maaragtay ay ilmuhu ama dhalinta la kulmaan markaa mataqaana maarata ahaato marka baaritaan noocaas oo kale markuu yimaado waalidku waxaa markaa mataqaana habboon haddii uu jiro khalad waalidka ka dhacay inuu markaa waalidku siday tahay u sheego haddii ay tahay aqoon darri inay timid inuu waalidku siday tahay u sheego uusan mar walba markaa mataqaana waalidku uusan cabsanin su-aalo markaa mataqaana way imaanayaan ee mar walba quseeya ilmaha siday u seexdaan waxa ay cunaan waxa ay helaan sida markaa mataqaana maarata nolosha guriga ay tahay intaasoo dhan waa su-aal furan oo imaanaysa si ay markaa u ogaadaan sida xaqiiqdu tahay axmed waxaa dhici karta caruur u baahan baahiyo gaar ah oo laga yaabo xitaa in qaarkood xitaa ay iska lumaan oo kaleo meelay joogaan la garan waayo oo markii dambe lasoo helo ama iyagoo guriga waalidka joogaba ama meelo kale ha joogaane ama soshaalka gacanta ku haya ama waalidkiiba ha ku haaye iyaga yee tahay inay gacanta ku haayaan oo kale caruurtaasi marka waxa weeye maadaama markaa mataqaana maaragtay ilmuhu hadday nool yihiin oo ay markaa caafimaad muuqda uu jiro wax cunayaan seexanayaan soconayaan iskuulka tegi karaan kasoo noqon karaan micnaheedu ma ahan in markaa mataqaana macnaha mataqaana ilmuhu ay 100% caafimaad uu jiro waxaa suurtagal ah macnaha mataqaana xanuumo markaa mataqaana aana muuqanin laakiin dabciga markaa mataqaana keeni kara ilmihii markaa mataqaana maaragtay muxuu ahay samaynaya waxyaalo aan loogu talagelin ku dhaqaaqaya markaa mataqaana maaragtay muxuu ahaay dabeecado markaa maaragtay aan habboonayn in markaa waalidku haddii taasi markaa uu arko in uu dalbado waalidku markaa maaragtay kaalmo oo ah in ilmihii baaritaan lagu sameeyo waxa laga xishooda ma ahan wax wal qof walba ku dhici karta weeye markaa mataqaana maaragtay waalidku lama baaha inuu markaa maaragtay markaa meel walba ku sheego laakiin wax haddii ay timaado inuu ilmaha siday xaqiiqda ay tahay waalidku inuu uga warramo weeye asagoo doonaya in ilmahaasi ay helaan waxa ay u baahan yihiin caafimaad ahaan iyo kaalmo ahaan haddii taasi markaa waalidku uu la dhuunto ama uu qariyo asagoo markaa mataqaana ka baqaya markaa mataqaana cayb ama markaa mataqaana aan ogolayn wixiisa markaa in la ogaado waa uun dhib gadaal ka soo bixi doona ee mid kasii weyn abuuri kara oo ilmihii markaa mataqaana u hogaamin kara muxuu ahaa maaragtay dabeecado aad iyo aad khatar u ah fal xun oo aanan fiicnayn mustaqbalkoodana ka baabi'in kara haddii ilmihii aan la kaalmaynin waktiga ugu habboon guntii gabagabadii axmed maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxa weeye markaa mataqaana maaragtay in la raadsado markaa maaragtay muxuu ahaa warbixinta muhiimka ah khaasatan markaa mataqaana maaragtay muxuu ahay socialka cilmiga markaa muxuu ahay hay-adda markaa maaragtay bulshaawiga ah ee kaalmaysa markaa maaragtay familiyada iyo caruurta siday u shaqeeyaan maahan keliya markaa maaragtay doonashada markaa maaragtay kaalmada lacagta keliya taa keliya kama shaqeeyaan wax badan bay ka shaqeeyaan saan hore usoo sheegay marka inaad markaa maaragtay ballan ka qabsato inaad raadsato inaad markaa maaragtay xaqiiqda ka warto in xataa waalid ahaan waxaad adiga shaksiya u baahan tahay in markaa maaragtay aad heli karto isla markaana maaragtay muxuu ahay adoo gacanta ku haysto qoraal ah aad ilmahaaga uga sheekayn karto si ay xataa ilmuhu u fahmaan in hadday ay rabaan inay markaa maaragtay ayagoo raba inay ku hanjamaan markaa maaragtay arrimo noocaas oo kalea inaad markaa ka horeysaba ilmaha aad odhan karto markaa maaragtay waan aqaanaa aqoontaasna waan leeyahay waxaad xaq u leedahay waan ogahay waxaan xaqkaaga leeyahayna waan ogahay markaa maaragtay marka taasi waxay keenaysaa xiriir fiican oo markaa ilmihii waalidka u abuurma waxay keenaysaa markaa mataqaana maaragtay waalidkii aqoontiisa kor u kacda waxay keenaysaa markaa mataqaana maaragtay xiriir kaloo abuurma markaa mataqaana maaragtay muxuu ahaay socialka iyo soomaalida waa tahay waa kuu mahad celinayaa axmed martiqaadkii aan kusoo bandhigay sidaad iga aqbashay adiga ayaa mudan walaalkay markaa maaragtay muxuu ahaa wixii markaa soomaaliya ay raba inay ila soo xiriiraana waad soo siin kartaa markaa maaragtay muxuu ahaa contactgii markaa maaragtay haddii aan awoodi karo waxaan caawin karna inaan caawiyo waa tahay waa mahadsantahay axmed waa tahay dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa axmed xirsi oo ka mid ah waaxda bulshada
ahna gudoomiye xigeenka guddiga dhaqanka ee gobolka Westerbotten. barnaamijkeenii arrimaha bulshada iyo ganacsiga ayaa intaas kusoo gabagabeynaya. mar kale iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. la sacabtu yeedso idaacadii TV-ga